walaalaha Soomaaliyeed meel kasta caalamka daafiisa jooga waan salaamayaa. Waxaan rabaa inaan maanta dhowr arrimood halkan ku soo qaado oo kooban. Ugu horreysa waxa weeye dowladda Soomaaliland ninka ku hadlayay shalay magaceeda ku hadlayay la yiraahdo wasiirka hawlaha guud ee Colombia la yiraahdo saan u maraynayo naanistiisu inay tahay ama uu yahay waxaan ka maqlaayay isagoo leh hantidii dowladdan tira koobayna waana soo celinayna horta aanu shaqaysanaan walkan eego hadalkaasi suuragal ma yahay wax soconay ma yahay haddii se runta la doonayo miyaa la soo celin karaa hantidii ummadda miyaa la soo celin karaa waxa weeye أنا أرتاح لأن تصوير على طاي واحد تدور هو ما أنت أو مدة له هو دموينه تدوينه ليه ما بجري تبع والله ما بعرف كربا معايا يعني أنا بورا ما جوجايو أنا جو لحد النادي أنكراديسن وإنجليز كلام مركز سيب حيو حفيز كي برا صاحب كي إنجليز كوا فريسن جري أو لورين جري أقل كي دي سيجا لورين جرو كم قاعد ديرا يا هرت ده لقوا إيبي أنا واركينا وأقل كي بورا موجود داوينا uguna maarataanay caansana maarataanay laga bilaabo dawladdii Aadan Cabdilla Xasan dawladdii Maxamed Siyaad Barre ilaa dawladdiina Cigaal in Rayaale ilaa dawladdii Siinayo madaxeedii intii hore xafiiskaasi la fadhiyay uu kale askar gasho dawladdii iyo kale madaxdii fadhiisato ayaa hadda shacbi laga iibiyay oo la burburinaya la dhisanaya wixii kalena waa la midun ha noqoto wasaaradda kale ha noqoto maartay hanti kale oo dawlad ummaddu leedahay caam ha noqoto saasaa loo wada iibiyay waxa la yaab leh halkay lacagtaas ku dhacday 2016 ilaa 2017 la iibinayay halkay ku dhacday meel alla meel ay dawladda kaga dhacday lacagtaas oo la yiraahdo waxba lagu qabtay wali ma hayaan mana arag hargeysa haday tahay iyo boorama haday tahay burciyo dhulkaan ma aqaano aad ma aqaano laakiin abashadeeda waan maqli jiray hatta iyada iskuuleyn la isku laayay in la iibiyo la doonay wax la yaab la weeyaan dhalinyartani waxba siyaasiyiin la yiri aanu dheelay dad siyaasiyiin ma arkay shandadaha sitee ku qarafaysanaya lacagta ku urursanaya kale gudaha ka ururiyaan kale dibadaha la tagaanba horta siyaasiyiin nooma noqon karaan dawladna nooma maamuli karaan mana itraafi karno ninka shalay hadlayo hadaad iyaga ka mid tahayna adna waqtiga uu shadada iska sug inaad wax ku gurato haddii aad run sheegaysana dawladdu waa tii wax iska celisa 3 oo standard form 3 ah ilaa xarigii uga bilaabay kacaankii ayaan ku soo gaaray dhowr iyo 80kii ومع ذلك هذا أنا ودولتنا هيدمان اعتراف سنة ما أنت الدولة بحسك على سايميشن ما بطالبه شارك حمر بان صومرنا كي أركيسات بان صومرنا كي جبري بان صومرنا كي بورا بان صومرنا إلى مركز دمان دبلا وقع الريوم جيبوتي حاجة إسكتري مركز حوي دولة أم حقيقة بعد روح دون ضد كهو قبضت تي وحسك على سويا هذا يستطيع وريا على حريقه كم مسكين هو إيربور كسود دقيقة حمر كي يمدوا على حريقه waxa haday tahay dadka wax lagu qabanayaa oo intuu tan waaweyn wadankii iibinaysa shandadaha ku ridanaysa imaaraadka iyo ka dhex shaqeynaysa hargeysa iyo eeriyadaas iyo barbara haday arintu tahay kuwan wax laga qabanayo oo iyaga lama taabtaan weeyaan kuwani masaakiinta xamar iyo ka soo noqonaya meelahaana hadii la xirayo waalkeeda war dawladdu haday tahay dawlad waa inay wixeedii yana gariga gardarraba waa inay wixeedii sugtaa وهذي دتك أردن وضحيسة ويان هذي الدولة دتك وضحيسة دتك إسكالي هاي ويان هذي كله ده غير نما لقون نولان غير كيس إنه البور غير كيس وحقويه ونحقاته حابين لسوي شيء الشعب لما ميدون بكون نولان كراه دولة عدالة هو الشعب كان كله حقته أو ما رتي كله عليسه أو وإنه البحقي سيسا إيوه تهدي اللي وياه إنه البور غير كود أو النقطة يعني ما رتاني يعني واحد اللي أورنج معاه insurance
insurance noqda ilaan isaga maktab bixinay oo maartay reer ka qaadayaan inuu reernimada ku noolaado labada midna ma hayna maanta wali waxaan ku wareersanahay xafiisyada dawladda ayaa jooga maanta dad halka ku wada kalaha iyo wada qaylinaya oo wada ashtakoonaya oo la kala saaraynin oo maartay nin kastaba maartay wareersan yahay yaa u maqan taasi horta waxaan leeyahay xoolaha dawladda haddii la doonayo ninka shalay BBC ka hadlayay in dhageysanaya hadduu run sheegayo hanti badan baa dawladda ka maqan oo fara badan oo waliba asalkii ah state house kii Hargeysa xaguu maray waxa la yaab loo wasiirka u sheegaya iyo dawladda Somaliland ba oo dawladdiina rayaala u sheegay markiina cigaal dhintay Allah u naxariistay oo dawladdii maartay siinaya u sheegay waraqalka idaacadda agtiisa ee xisbiga loo dhigay guriga xisbiga ee bacadluhu maanta googoosanaya iyo shacabku googoosanayaan meel ka qurux badan Hargeysa ku taala miyaa jirta maya weey aqalka haddii la dhisi lahaa Hargeysa quruxdeeda nusbu ka noqon lahaa ninkii aqalina u garanaya waraqalka dhistaan ku kari waayo maxay Sheekh Xasan baa dawladda caayay shaad war wasaarad haddaan idin war warshadii sibirka soo saarisay barbaraad xagay martay haddaan idin raado macayba maxamed siyaad baraa dhisay SNM way googoosatay oo iibgeysay maxaa afka looga baqaya maartay maartay runta looga baqaya haddaan ninka madaxweynaha laftiisa weydiiyo ma maxamed siyaad baraa markii dambe furfurto iibgeeyay ma ayuu leeyahay waa runtii soo maxamed siyaad baraa uma iman waa kii soo baxsaday laakiin yaa bixiyay ragii SNM soo galay baa iibiyay haddaan idhaa war bulshadii dib ha loo dhiso kuwii hor haba cunaane ma ceebbaa ma dad baan caay haddaan idhaa aqalkaa maartay xisbiga ka qabiyoobay ee dawladda oo dhan qaadaya wasiirada oo dhan qaadaya madaxweynaha qaadaya ee quruxda halka ku yeelana aad aragtay haddaan dhisa idhaahdo oo hanti la geliyo ma ceeb baan sameeyay ina deeya waxay mahaya ilaa oranine ma ceebin anigu waxaan umada run sheegaya state house kiina hal gacanta lagu dhaw dib la soo cisho iyo eeriyadiisi iyo shacabkii iyo xafiisyada dawladda iyo jaamacadu dhulka lahaayeen iyo dhulkii wixii oo dhan la soo cisho hadda boor waxaan ku haynaa aqalkii taliyaha qaybta oo cid dhisatay aanu ma garanayay la dhistay dhulkiina qayb gaar loo goostay ee aqalkiina la hagaajistay ee aqaladii kalena waa la midoon ee dawladdu lahayd dhul baan ku lahayo fara badnaay oo la dhistay baan aragnay oo maartay aqal waaweyn laga dhistay oo shacabka laga dhistay yaa bixiyay waxa weeyaan ruwaadii aan umada loo dhigine kolba wasiirkii maadayuna kelmad maartay iska dheelaydada lagu oranne hantida ummadan ka maqani maanta waa hanti aad iyo aad u xoog badan la soo celin kareynin haddii wax dabaqabad laga samaynayo yaan leeyahay ku socdo bal han aragno ilaa sanadka gudihiisa ilaa sanadka soo socda bal wixii la soo celiyaa aragno waxa ila yaab leh 19 meeshan ku soo ururiyay madaaficii yaryar shirkada loo jiray oo la jirtay suuyadii yaryar oo la jiray airportka iyo kuwii dhinacan waqooyiga ee Faaraxiye meesha la oo la jiraan ku soo ururiyay 19 ee sharaacida u wada askartana aan raashka soo qarfayn jirnay ee markii dambe la dhigay ciidamada jajabka iyo waxba lagu magacaabay saasa horta ciidamada jajabka iyo lagu magacaabay oo haddana leeyahay waa la iibinaya ama waa la iibiyayba askarkan maalintii maanu iibiyo xirad dawladeed weeyaan maalintii ay wada gaajoonayeen ee shiraacan aan u lahaa maxaydaanay qoryahan ku daboolidooda ma la iibiyo oo iibin wax inuu damiirku dadku damiir yeesho xishoodo ayaa fiicnaan lahayd taa waxaan ku soo gabagabaynayaa wasiirka hadduu maanta aanu hadal fiican baan shalay maqlayay hanti dawlad baa la soo celinayaa haddii ay dhab tahay waan arki doonaa soo celiya oo gacanta ku soo dhiga taasi waa taas inta aanu aad baan horta ugu xumaay halkay musabixiin laga cawdo anoo saaxiibana waan hayno maalmii ugu horeysay ee dawladda dhisay baan boorma isku nimadnay bishii ugu horeysay ee maarataanay la asaasay 19 runtii deninka saaxiib salaadkee wanaagsan weeyaan laakiin anoo hindee jiifa ayaan maartay YouTube-ka meesha waxaan ku arkayay gabadh cabaadaysa oo leh waa adeerkay saasay hadlaysaa waa adeerkay baa beertiga qaadanaya ayay lahayd dadkani horta gar iyo gardar la'aan bay ooyi karaan ma garanay inay run sheegayso iyo inay been sheegayso ilaahay baa iga garan laakiin gabadha anoo hindee jiifa ayaan ku arkay maarataanay beerteedii naga qaadanaya arrimo badan ay ku calaacalaysa laakiin waxaan leeyahay muuse oo kale maartay madaxweynaha waxaan sheegayaa intuuna madaxtooyada meel kale ka dhisanin taa aan tilmaamaya ee guriga xisbiga lagu sheegi jiray
wallaahi bal maaragtay ilaah baan ku dhaartay taa magaalada haddii dowladdaas hadday dhisan lahayd aqalka hadday dhisan lahayd wasaarad kastaba qaybteeda qaadan lahayd madaxtooyadana qaybteeda qaadan lahayd dhulku intuu leeyahay waad aragteen quruxiisa halkuu yahay waad aragteen taasina waxa leeyahay muuse cabashooyinkan kale maaragtay dadku cabanaya intuu iska daayo horta bal wixii hanti gacanta ugu jiray dowladda ee maaragtay la boobayo ee maanta aan arkay baxaduu say hoosta uga galeen ha laga wada saaro oo eeridiisi inta maaragtay la soo wada celiyo hal dhisto wasaarad kastana qaybtaa dhisaa la yidhaahdo anu waxaan leeyahay taas muuse oo keliya maahna dowladda waxaan leeyahay mar walba anu wixii dantooda aan tusaaye inay aqalkaa dhistaan ayaa uga wanaagsan meel kastoo madaxtooyada bal boorama imika u fiirsada aqal madaxtooye oo yaa laga dhistay baa la yidhi boorama waxa la geeyey xooggii maarataanay maaragtay qoorgaab xooggii loodhan jiray dhakadiisa meelaan cidba tegaynin oo cidlo ah ayaa la geeyey aqalkii ay dhisan lahaayeenee dhiisiga lagu magacaabi jiray barasaabku lahaayee santarka magaalada ahaana ee dowladdu lahaydna way iibiyeen dowladdu markaa ay goormay waalan tahay kolkay dad beer ka qaadanaysa ay boobaysa ay aqal ka dhisanayso iyo aqalkii dowladda inta la iskaga tago dadka laga iibinayo goormay waalan tahay hala ii sheega taas halkaa waan ogahay aqalkaa boorama laga dhisay madaxtooyada inaa qolo laga qaaday beer iska lahayd oy sanada dacweeyeen oo boorama o dhan ku wareertay oo miskiin jaamaca lanoogu soo galay sheekh cabdillahi shacli jaro jooga lanoogu soo galay iyadoo maarata la cabanayo waxa weeyaan tii ayaa madaxtooya laga dhisaya maxaa madaxtooyadii aqalkii barasaabka aw lahaan jiray iyo bidhiisigu lahaan jiray maxaa u diiday boqortooyada aqalka in laga dhiso madaxtooyada taana waa sidaas